soo dhawaada saaxiibayaal. Thumbnail markii aad samaynayso waqti fara badan ma kaa qaataa, haddana saas ay tahay professional ma noqon waaya. Ka waran haddaan ku idhaahdo shaqooyinkaasoo dhan hadda waxaa kuu qabanaya within 1 minute AI isagoo samaynaya thumbnails professional ah. Tusaale ahaan, haddii aynu eegno dadka YouTube-ka ugu subscribe-ka badan sida Mr Beast oo kale, haddii aan ku idhaahdo ka waran Mr Beast thumbnailskiisa uu waqtiga faraha badan lagu bixiyay ayaan waxaa ku samayn karaa isla thumbnailkaas oo YouTube-kiisa ku jira anigoo wax yar ka bedelay 2 minute kaliya. ma ku dhibanayd markaa thumbnails professional inaad samayso adigoo waqtigaaga faraha badan la gelinaya haddana thumbnailkaagu professional ma noqon waayo. waxaynu maanta isla eegi doonaa markaa sidii aad thumbnail professional aad ku samayn karto. xataa haddaad thumbnail Facebook soo dhigayso uu yahay kuwa aspect ratio-da Facebook waad samayn kartaa, Instagram waad samayn kartaa, thumbnailkaad rabto waad samayn kartaa. AI ayaa shaqooyinkaas hadda ku qabanaya. marka AI-gu inta badan wuxuu kaa caawinaya waxay tahay in shaqooyinkaaga 100%, 80% uu mararka qaar kuu fududeeyo adigu lagaaga baahan yahay keliya in aad la timaado inaad wixii isku xidhxidho keliya. marka maanta waxaan rabaa inaan uga faa'iideeyo dhalinyarada YouTube kale, TikTok kale, sidoo kale maxay ahayd inay wax soo gudbiya in ay thumbnailkooda aysan waqti badan ku lumin, professionalna u ahaado. halkee ayaan u samayn karaa una soo koobiyeyn karaa thumbnailska dadka YouTubeska ugu saameynta badan leh anigoo keliya kusoo koobaya 1 minute gudahood. haddaynu isdul taagno labadan dhalinyaraha Nico Omalina ama Mr Beast. Mr Beast waxaan aaminsanayn qof walbaaba uu garanayo. marka haddii aynu isla eegno thumbnailskiisa waxaad arkaysaa in uu very professional yahay. haddaba thumbnailskiisa sidee kusoo koobiyen karaa anoo weliba sawirkayga dhiganaya within 1 minute keliya. waxaan isticmaali doonaa website loo yaqaano Ideogram iyo ChatGPT iyo Upscaler, website yaro Upscaler ah oo thumbnailkayga markaa 4K ka dhigaya. saddexdaas ayaan isticmaali doonaa kana dhigi doona thumbnailkeena mid professional. tusaale ahaan kan oo robotka, maadaama AI waxyaabahaasaan ka hadla, haddaan thumbnailkan oo kale raba inaan diyaarsado screenshot ayaan saas uga qaadanaya. kadib screenshot markaan ka qaato waxaan tegaya ChatGPT ayaan u tegaya. waxaan leeyahay ChatGPT ayaan u tegaya. kadibna waxaan leeyahay okay, sawirkii ayaan halkan ku koobiyeynaya. waxaan leeyahay give me the prompt of this thumbnail. waxaad siisaa promptiga oo thumbnailkan aad ka arkaysid. marka ChatGPT wuxuu kaa caawinaya inuu bit by bit kuu siiyo thumbnailka wuxuu ku dhex arkayo promptigiisa. okay, promptigii markii aynu noo diyaariyey uu yahay hyper realistic cinematic YouTube thumbnail. okay, wide angleskaas waxaynu la tegaynaa website-kan ayaynu tegaynaa ku qoran tahay ideogram.ai. markaynu kan tegno dabcan waxaad samayn doonta loogadiisu qaabkan ayay u eegtahay. qaabkanu markaa kugu soo baxay wejigiisa, stylekiisa sare haddii aynu eegno halkan aspect ratio-da ma TikTok ba ma YouTube ba. markaa YouTube waa 16.9 ayaad ku daysanaysaa. halkan ayaad markaa promptigan uu ChatGPT kuu sameeyey ayaad halkan ku koobiyeynaysaa. okay, promptigan ayaad koobi leedahay. waxaad samaynaysaa ideogramkan ayaad u tegaysaa. waxaad leedahay okay, past generate ayaad leedahay. generate markaad tiraahdo, marka ideogram isbuuc walba credit ayuu ku siinaya oo waa free. haddaad tusaalaha 3 video isbuucii soo geliso is more than enough. creditka uu ku siinayo isbuuc walba way update gareeyaan oo uu kugu filan yahay. that means waa bilaash. waa bilaash haddii waxyaaba intaa ka badan aad rabto inaad ku samayso uu ku lacag yahay. ChatGPT aad promptiga weydiinaysaa isagna laftirkiisa bilaash, qaab bilaash kuu siinaya. okay, waa kan wuxuu sameeyey intanoo prompt ayuu sameeyey, intanoo sawir ayuu sameeyey, kanuu sameeyey. wuxuu sidoo kale sameeyey kanuu sameeyo angalkaas ayuu ka sameeyey. haddana angalkan ayuu ka sameeyey, angalkan ayuu ka sameeyey iyo angalkan. okay, kan iyo markaa ka YouTube-ka ku jiraayay master thumbnail way isku eeg yihiin. robot oo meel sportiya jooga iyo 2 nin oo tartamayo. surwaal casaan uu xiran yahay, dhar casaan uu xiran yahay, kana iyo surwaal casaana. adigu uu kuu sameeyey sawirkii. laakiin sideen markaa sawirkan markaan download dhacdo sideen ninkan sawirkiisa aan kayga ugu bedeli karaa, sidoo kalena aan tayada 4K uga sii dhigi karaa. okay, thumbnailka waxaa arkaysaa in wax qoraal uu ku qornayn. ku kaleynu isla eegi doona qoraal uu ku qoran yahay, kan imika wax qoraal ku qoran. okay, markay saas tahay waxaan kusoo noqonaya ChatGPT.
ChatGPT ayaan kusoo noqonaya waxaan leeyahay sawirkan markaa aan downloadka nidhi ayaynu soo qaadanaynaa kadibna sawir aan leeyahay ayaynu haddana soo qaadanaynaa hadda markaa sawirkii oo uu sameeyey ideogram ayaynu soo qaadnay sidoo kalena sawir aan leenahay ayaynu soo qaadnay waxaanu markaa leenahay sawirkan ninkan sawirkan saaran sawirkayga ku bedel kadibna waynu sii samaynaynaa markuu intuu shaqada qabanayo waxaynu isla tegaynaa markaa sawir kale oo qoraal ku qoran yahay ayaynu isla eegaynaa haddii aynu tagno yarkan oo kale isagna thumbnailskiisa aynu eegno mid ay wax ku qoran yihiin kan oo kale wax ku qoran help me ay ku qoran tahay kaas ayaynu haddana screenshot ka soo qaadaynaa screenshot markaynu ka soo qaadno sawirkan waxaynu tegaynaa sidii mar kale haddana ChatGPT ayaynu tegaynaa waxaan leenahay isii promptiga sawirkan give me the prompt of this picture intuu isagna diyaarinayo waxaanu tegaynaa kii face swapka ahaa sawirkii waa weli uu socdaa oo isdiyaarinaya kan promptigiisa uu inoo diyaariyey intaa uu ka kala socdo waxaanu tegaynaa marka ideogram markaynu tagno kadibna bast ayaynu leenahay markaan bast naano thumbnailkan labaad qaabkuu sameeyey aynu isla eegnay intaa uu samaynayo waxaynu tegaynaa inuu kii kale sameeyey waa kan kii kale horta uu sameeyey oo sawirkayga ayuu meesha ku bedelay kadibna save ayaynu leenahay kadibna share ayaynu leenahay download ayaynu leenahay download markaynu idhaahno waxaan tegaynaa application kale oo loo yaqaano Upscaler online applicationkan upscaler.ai ayaynu tegaynaa upscaler.ai waxaanu samayn doonaa in aynu sawiradeena aynu 4K ka dhigno tayadiisa oo sawiro kasii fiican aynu ka dhigno markaa si uu thumbnailku usii qurux badnaan upload image kadibna kii ugu dambeeyaynu dooranaynaa oo sawirkeena ahaa waa kan u generate garaynaya kadibna 4K ayaynu sii dooran doonaa si uu sawirkaasi uu tayo fiican u yeesho ideogram baynu ku noqonaa sawirkii labaad inuu sameeyey kale weli generation complete ayuu leeyahay uu sameeyey sawirkan ayuu inoo sameeyey iyo kan kale iyo kan kale iyo kan kale markaa ka ugu fiican baynu qaadan doonaa aynu isla eegno sawirka uu ninkani soo dhigay isagoo sidee uu iska fadhiyaa bajaajo green halkan ka maraya help me baa ugu qoran wejigiisu waa sad ideogram markaa muxuu sameeyey isagna wuxuu sameeyey bajaajo green halkan ka maraya wejigiisu waa sad kanoo kale wejigiisu waa saan kanoo kale wejigiisu sad yahay bajaajo green waxaa samar help me baa ku qoran kanaynu download garaysanaynaa as usual waxaynu ku noqonaynaa markaa waxaynu ku noqon sawirkaygii baan haddana soo qaatay waxaynu nidhi past swap the face in the thumbnail intuu kaasii samaynaya markaa waxaynu tegaynaa kii hore ee aynu gacanta ku haynay enhancerkan tayadiisii uu sii dallacay laakiin 4K baynu u baahannahay si oo tayadiisu usii fiicnaato kana uu sameynaya markuu kaas uu sameeyo 4K safe ayaad leedahay mindadaas gudahood waxaad ku heshay sawirka inaad koobiyeyso dadka adduunka ugu saamaynta badan leh sawirkiisa thumbnailkiisa dadka adduunka ugu saamaynta badan leh thumbnailkiisa haddaynu hadda eegno markii hore saanu ahaa markii dambena saana ka dhigay that means tayadiisu aad bay u fiican tahay aad iyo aad bay u fiican tahay download baynu leenahay halkaasaynu teganaa kadibna download baynu leenahay sawirkii uu noo soo degaya markuu noo soo dego saasaan ku haysanaa thumbnailkii kii labaad aynu eegno kii labaad aynu isla tegno muxuu sameynaya markaa ChatGPT uu wadaa waa kan ChatGPT markaa sawirkii inoo sameeyey waxaad arkaysaa in oo maxay ahayd inuu wejigayga ku bedelay oo qaab fiicanna ka dhigay isla kii inoogu sameeyey kadibna waxaynu leenahay download baynu siinanaa markaynu download siino waxaynu u tegay sidaas ayaa waxaan ku haysanaa laba thumbnail within 2 minutes to 3 minutes aynu waxaan ku sameynay thumbnails dad ay waqti ku bixiyeen oo fikireen professional eye catching biyinaynago isticmaalana aaladaha AI-ga
kow waxaanu isticmaalnay in aynu sawirkii soo qaadno oo inu ChatGPT ku nidhaahno promptigiisa noo diyaari. labo waxaa naga saaciiday inuu thumbnailkii sidiisiiya sameeyo idgram.ai. saddex waxaanu u baahannahay in aynu imageka tayadiisa sii dallacno oo thumbnailku 4K noo gaadho. kadibna waxa aynu markaa upscaler uga dhignay isla websiteka ku qorta upscaler.ai. intaasoo keliya ayaa waxaad ku samayn kartaa thumbnail buuxa. haddii mararka qaar uu soo gaabtana waxaa idin canva la taga yara jiida kadibna waxay noqonaysaa in uu YouTube thumbnailka uu ratioyadiisa u dhamaystirnaado.